سلامة الياء كسران دب madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro ayaa maanta qasiga madaxtooyada ku qaabilay General Dagfin Anderson taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka Africon safir ku-xigeenka safaaradda Mareykanka Ambassador Justin Davis iyo wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan oo booqasho rasmi ah ku yimid jamhuuriyadda Soomaaliland kulanka oo ahaa mid leh muhiimad istiraatiijiyadeed oo culus waxa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga u dhexeeya Soomaaliland iyo Mareykanka gaar ahaan dhinacyada amniga xasiloonida gobolka iyo ilaalinta danaha wadajirka ee labada dhinac ay ku leeyihiin gobolka geeska Afrika iyo Badda Cas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa wafdiga Mareykanka la wadaagay doorka jamhuuriyadda Soomaaliland ku leedahay nabadgelyada xasiloonida iyo adkeynta hanaanka dimuqraadiyadda ee gobolka isagoo xusay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay mudnaan gaar ah siiso ilaalinta amniga xuduudaheeda la dagaalanka kooxaha jirka iyo amniga marin biyoodka caalamiga ee gacanka cadmeed taliyaha ciidamada Mareykanka Africom Master Dagfin Anderson ayaa xusay in Soomaaliland ay ku taalo goob istiraatiijiya oo muhiim u ah amniga guud ee Badda Cas iyo kan gobolka geeska Afrika isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay iskaashi dhow oo ay labada dhinac yeeshaan sidoo kale safir ku-xigeenka dowladda Mareykanka Master Justin Davis ayaa Soomaaliland ku bogaadiyay doorka muhiimka ah ee ay ka qaadato ilaalinta nabadda iyo xasiloonida gobolka amniga badda iyo sida Soomaaliland ay u leedahay ciidan awood leh oo nidaamsan iyo hanaan siyaasadeed oo xasiloon safir ku-xigeenka ayaa muujiyay in dowladda Mareykanku ay muhiim u aragto si xoojinta wada shaqaynta dhinacyada amniga horumarinta hay'adaha amniga iyo kobcinta xiriirka labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro ayaa dhanka kale hoosta ka xariiqay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay diyaar u tahay inay si buuxda ula shaqeyso dowladda Mareykanka si loo adkeeyo amniga gobolka lana xoojiyo ka hortagga khataraha sii kordhaya gaar ahaan kuwa ka dhashay hirdanka quudaha waaweyn ee marin biyoodka gacanka cadmeed iyo Badda Cas iyo dhaqdhaqaaqyada sii kordhaya ee kooxaha xasilooni darrada ka wada gobolka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu muujiyay inay jirto fursad ballaaran oo u taala labada dal taasoo ku saabsan xoojinta iskaashiga difaaca dhaqaalaha maalgashiga iyo adeegyada muhiimka waa nolosha bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu wafdiga culus u cadeeyay in Soomaaliland ay tahay saaxiib la isku halayn karo oo Mareykanku leeyahay oo ku yaala goobta ugu istiraatiijisan gobolka geeska Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay in danaha amni iyo kuwa istiraatiijiyadeed Mareykanku uu ku leeyahay gobolka bariga Afrika ay si dhab ugu jiraan aqoonsiga Soomaaliland maadaama Soomaaliland ay tahay dal leh nidaam dimuqraadiyadeed oo shaqeeya ciidamo qaran oo amnigeeda sugayay muddo ka badan 30 sano iyo goob muhiim u ah istiraatiijiyadda Mareykanka ee xasiloonida mandaqada kulanka ayaa ku soo gabagaboobay afgarad buuxa oo ku saabsan in labada dhinac ay sii xoojiyaan iskaashiga amniga kor u qaadaan howlgallada istiraatiijiga isla markaasna ay ka wada shaqeeyaan ilaalinta xasiloonida Badda Cas iyo amniga guud ee gobolka geeska Afrika si loo suurtageliyo hanaan ku dhisan dana wadaag iyo iskaashi joogta oo miradha waxaa xusid mudan in wafdigii ka socday Mareykanka ay hogaaminayeen taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ee Africon General Dagfin Anderson iyo safir ku-xigeenka Justin Davis markii ay dhamaysteen kulankii ay la yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa loo kaxeeyay madaarka dekedda caalamiga ee Berbera iyo magaalo xeebeedka Berbera si ay u soo kormeeraan ugu dambeyn kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo la yeeshay wafdiga ballaaran ee ka socda dowladda Mareykanka waxa uu helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaasha kala duwan ciidamada qaranka iyo mas'uuliyiin kale Cabdicasiis Saciid cilmi warbaahinta qaranka qasdiga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa